marka mas'alo waxa ku jirta ay isku khilaafaan culimadu oo ah jilbaha iyo labada gacmood kee la hormarina ma mas'alo culimadu aad isku khilaafaan laakiin xadiiska Abu Daawudka waxa ku cad in gacmaha la hormarina xaayala xadiiska Abu Hurayra nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam إذا سجد أحدكم قف إن كمذا مركا سجودا فلا يبرك يوصن أفريسا كما يبرك البعير سيدا النفك جيلا أفريستو سيدا جيلا تشلبوه لكو قوستا جوك هورتا اللي بدا تشلبوه لكو قدفتا كدب جع قدالو أفريستا هدانا هورو أصوت لما يستيران صدح داسو قاب أفريستا صدح داسو استوات لقاي جوك ساسو أفريستا وصدح تلابو قادا جيل مركو فريسانا لبدا جليبا ugu horeeyo dhulka ku dhufta nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ida sajada ahadukum fala yabruk yusan u fariisan kama yabruku al-bahir sida neefka geela u fariisto wal yada' yaday labada gacmood hadhigo qabla rugbatay labada jilib intuu san dhigin tuusan jilbaha dhigin gacmaha hadhigo marka waxay yiraahdaan علماء قبل حتى ابن القيم يصيدان او شافعيده قبا ابن القيم او كلا توخو حديثك قلبيا كجير وحو ليهي markii hore maadaama nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam fala yabruk kama yabruku al-ba'ir sida neefka geel u fariisto yusuf u fariisan waxay ahayduu leeyahay wal yada' rukbatayhi labada jilib hadhigo qabla yadayhi labada gacmood ka hor marka wuxuu leeyahay ruwaada istaba maray xadiiska sababtuna waxaan saas u leeyahay uu yiri geela labada lug jilib u dhigta sax laakiin hadii labada waa gacmaha weeyeen geela jilbiisu gacmaha ku yaalin lugaha kuma yaalin geela labada gacmood hore ay jilbiisu ku yaalin marka wuxuu leeyahay hadii aad tiraado gacmaha la hormariyo geeli nabigu yiri yaan lagu dayarad ku dayar geeli uu ka digay oo yiri war geela iska ilaalisiisa u fariisanina geeliyad raacday uu leeyahay sidaan shafiiciyadu uu asagu taxliilina soo ma jeedid laakiin xadiiska qalbiga ku jira iskama dhigan ruwaada fiqada in lagu taqdi'a xukmiyo biduuni hujja bayina saxma culimaduna waa ka jawaabeen waxay yiraahdeen waxay tahay sideeda jilib geel hormariya jilib hormarina laga raba aduu jilibka annaga wuxuu noogu yaalaa labada dambe geelana labada hor ugu yaalaa waxa la diiday in la isku shabaho waa jilba ku dhufashada marka geelu jilbu hormariyay geela idinkuna jilbaha hormarina way taas xadiiskana daahirka la raacay in la yira qalbiga ku jira daliil baan ee tacliil kaliya lagu xilay karo ala kulli hal wal mas'ala ay had culimadu uga niqaasheen laakiin waliga ogow daahirka xadiiska iyo ta'wiilka daahirka la raaca hadaan xujja cadhayn xadiiskana sariix fiiri فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قعمها هدغو قبل ركبتيه وانا معنى اللي فاهمي كرو قعمها جلب اوغما يالين ددك قعمها جلب كما له ددك لوغاhay kulay labada dambe kulay dadku geel waa labada hor kulay jilba marka sidaas xadiiska daahirkiisa sidaas daahira wallahu a'lam